السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada asxaabteeda janalkeyga Nasra Carfaaye Cooking Channel. fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay subscribe saaro gambaleelka furo si aad ula socotid cashir walba aan soo gelino una sii share garee asxaabtaada insha Allah. Nasra Carfaaye Cooking Channel asxaabteeda waad ku mahadsantihiin sidaad ila socotaan iigu soo duceysaan qiimihiina isugu jiro ducada iyo dhiirigelinta. asxaabe maanta waxaa sameysan doonaa basta saldato insha Allah. muuqaalkeena sidaas ayuu ku saabsanaan doonaa maanta. hadeertaane waxaa idin tusinaa waxyaabihii aan ka sameyn doono insha Allah. meeshaan waxaa ku heystaa yaanyadeena caadiga dalka aan soo shiiday kadibna aan kusoo miiray shabaqa lagu miiray cabitaanka yaanyadeena dalka. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa karooto aan soo xoqay. meeshaan waxaa ku heystaa maraq digaaga qudaarta ka sameysan. maraq digaaga haddii aad neceb tahay ku bedelo cusbo. inta waxaa ku heystaa toon iyo kabsar ah soo tumay. intan waxaa ku heystaa filfil ayadana sidoo kale soo tumay. filfil shiidan haddii aad haysatid ku darso. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa hilib shiidan. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa hal xabo basal weyn oo aan soo jarjaray. meeshaan waxaa ku heystaa apple cider amba qalka tufaaxa. runtii qal tufaaxa aad ayuu ugu wanaagsan yahay cuntada dhadhan uu siiyaa. cuntadan wuxuu ka dilaa bakteeriyada. inkastoo cuntada markii dabka la saaray bakteeriyada ka dhimanayso haddana apple ciderka aad ayuu ugu wanaagsan yahay cuntada. insha Allah suugadeena intaan ay ka koobnaan doontaa amba baastadeena saldaatada ma isticmaaleyno maanta wax baradho ah. intaan ay ka koobnaan doontaa suugadeena amba baastadeena saldaatada insha Allah. asxaabe isla socod wanaagsan. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana furo si uu kugu soo dhaco cashir walba aan soo gelino. siina share garee oo la wadaag asxaabtaada. soo dhawaada mar kale. bismillaah asxaabteeda haddana waxaa bilaabaneynaa sameynta suugadeena insha Allah. waxaan sugeynaa inta saliidda nooga soo kululaaneyso. okay asxaabteeda haddana saliidda way noo soo kululaatay. waxaa ku darsan doonaa basasheeni noo jarjarneed. waxaan sugeynaa basasha inta nooga shiilmi doonto. haddana basasheena way noo shiilmatay. waxaan ku darsan doonaa hilibkeeni shiidnaa. haddana waxaa isku huurin doonaa hilibka iyo basasha. waa tahay asxaabteeda haddana hal daqiiqo waxaa isku huureen basasha iyo hilibki. haddana waxaa kusoo darsan doonaa waxyaabihii kale ah ugu talagalnay suugadeena maanta. meeshaan waxaa ku heystaa karootadii xoqneed. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa kabsar caleen iyo toon aan soo tumay. filfil maraq digaaga qudaarta ka sameysan. sida hore kuugu soo sheegay maraq digaaga haddii aad neceb tahay cusbo ku bedelo. haddana waxaa kusoo darsan doonaa apple cider amba qalka tufaaxa. hal qaando ayaa ka isticmaali doonaa. sidoo kale waxaa kusoo darsan doonaa yaanyadeeni shiidneed.
intaan ayaa waxaa sugaynaa intay iska dhex galayaan insha Allah. Isku soo noqonaynaa asxaabteeda. waa tahay asxaabteeda, haddana waxaan kusoo laabanay suugada weli biyo leedahay. waxaa la rabaa suugada intaanoo biyo inay soo dhameysato. markay biyaha noo soo dhameysato waa isku soo laaban doonaa insha Allah. asxaabteeda waxaan ka iloobo had ku darsanaynaa yaan shiishid hilmaami hadal kuma jiro. bini aadamka iska daciif waaye. xabad yaan shiishid ah bes waxaa ka rabnaa inuu kalarka guduudka zaa'idka oo noogu soo baxo. yaanya heesanaa bes shiishidka waxaa ka rabnaa kalarka guduudkan. waa isku soo laabanaynaa markay biyaha soo dhameysato insha Allah suugadeena. hayaag asxaabteeda, haddana waxaa kusoo laabanay suugadeena. suugada biyihii nyaanyada inta ugu talagalna way soo dhameysatay, laakiin waxaa dareemaa weli suugada inay karsamato usii dhiman tahay. hilibka weli ceeriin waaye. marka waxaa sameynaynaa, waxaa ku darsanaynaa nus galaas oo biyo ah. haddana waxaa sugaynaa inta kasoo dhameysanayso biyaha. waa isku soo laabanaynaa insha Allah. waa tahay asxaabteeda, haddana waxaa kusoo laabanay suugadeena. maasha Allah tabaarakallah. waa ujeediin weli biyihii ayaa ku jiro sidaa rabnay, weli manoo noqonin. waxaa ku dareynaa 5 daqiiqo kaleento. okay asxaabteeda, 5 daqiiqo kadib waxaa kusoo noqonay suugadeena. hadda waa diyaar, sida rabnay noo noqotay. haddana waxaa kusoo darsan doonaa baastadeena. baastada inta wada kusoo darsanin waxaa sameynaynaa suugada ayaa kala qaybsanaynaa si ay noogu fududaato inay si dhaqsi isku dhex gasho. saldaatada markii la sameynayo waxaa fiican suugada iyo baastada inay si fiican isku dhex gasho. baastada mar hore kariyay, kulay qof kasta uu yaqaanaa baasta sida loo kariyo. muhiim ma ahan inaa waqti idinkaga lumiyo. baastada waxaa sameynaya markaa karinaysid ayadoo dhiman ka deji si hadhow suugada iyo baastada waa la isku huurin doonaa aysan si fiican kaaga bislaanin. suugadii marka hore aan kusoo shubanay baaquli yar. haddana waxaa sameynaynaa waa isdhexgelinaynaa. si wanaagsan isku dhexgelinaynaa. farkeeta usoo qaatay farkeeto. si wanaagsan isku dhexgeli baastada iyo suugada. baasta saldaato aada u jecelahay walahi. hadda waa isdhexgelina baastada. waxaa sameynaynaa, waxaa huurinaynaa 5 daqiiqo. waa isku soo laabanaynaa insha Allah. baastada intaa huurinaysid ha ka aamusin. gedi si qeybkii
hoos jirtay kor u soo marto qaybtii hoosane hoos kor soo jirtayna hoos u marto. waa tahay asxaabteeda markaan noo soo diyaariyay qadadeena quruxda badneed sidaan ayay ku soo baxday insha Allah. wixii ducaa waa dhankiina kale dhadhanka ana idinka hubiyay aad ay u macaan badan tahay. tijaabiya isku day, wax walba waa isku day insha Allah. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashii Nasra Carfaayo idinkaga tagaysa khayr iyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo insha Allah.